lacagtaasi de diyaarad bay la socotay meel alla meel ku socotay lama garanayn wadankana siyaasad baa ka taagnayd marka waxa uu loo maleeyay una ma siyaasadaha ka taagnayd taamayaana ka taagani lacag badan oo noocaas oo kale oo cidina soo sheegin de kale tuunkeeda leedahay marka lacagtii waa la joojiyay meel baa central bankan ku shubnay central bankan taala tuunku wuxuu doonaba ha noqdo waxa laga yeelaya wada hadalkeeda lagu jiraa ma laga yaabaa in la celiyo wada hadalkeeda waa suuragal weeye qolada sharciga ayaa ku shaqale arintaasi ya wasaaradaha ku shaqale sharciga ayaa arinta sheegi doona sharciga internationalka hadii lacagan la soo sheegin marka wadankana kala soo geliso lacag inta leeg sharciga internationalku lacag way keeni jireen iyagu waa la soo sheegi jiray yaa la yiri waa la soo sheegi jiray waa la isla ogaa lacaga kale la keenayo waxbay ku jaangoonayeen lacag inta leego iska timaa wadan iska soo gasho oo diyaarad soo gasha oo niman shadada ku jiidayaan ya it doesn't smell good ma si fiican ma muuqato markii ugu horeysay lacag inta leeg la keenay miya cadadka leeg anigu intaan horta kulli ogahayba arrimaha ma anigu kama warhaya arrimo kale oo ma jira laakiin u malayn maayo lacag badan oo noocaas ah inay isku soo gali jirteen kulliba waxaan dareensanahay aan warka ku hayo waxa weeye lacag ay keeni jireen way jiraan oo mashaariic baa ka socota meesha imaaraadku ay maalgeliyaan waana ku mahadsan yihiin laakiin de lacagaas waa la soo sheegi jiray oo liis baa jiray oo waxa lagu falaya jirtay oo de meel waliba adeer waa sida duluq bay meehin dad jiraan April 8 maalintii lacagtu imaneysay isla subaxdaas baan u sheegnay taliyaha ciidanka warqad buu qoray garoonka taliyaha ciidanku mashaqo ku leeyahay wasaaradaha jira maaliyadaha jira prime minister baa jira ciidanku what hatta hadii ciidanka loo geenayo waa minister of finance loo sheego ya adna lagu ma sheegin ma leeyma sheegin ma iyadoo lacagta la qabtay baan anu ka waran marka ciidanku shaqo kale leeyihiin ya shaqo kale leeyihiin akhriskaagu marka muxuu yahay lacagtaas inay loo wadi ma garan karo laga waa suuragal in loogu talagalay in mushaaraadii wax lagu bixiyo waa suuragal in wax kale loola socday kulli anagu sas baan qabnaa kowdhi sas baan qabnaana waxa weeye in dee wadanka dawlad baa joogta laga soo wargeliyo waxay wadanka wax soo gelinaya ama investment ha soo geliyaan maalgashi ha soo geliyaan waxyaalaha soo geliyaan saskaan qabnaa waxa weeyaan in waliba dhinac ka soo galo dibatan lagu wareelo wax gudaha joogo marka taasi waan diideynaa waxaan doonaynaa wadankan in muxuu ahaa sharaftiisa soo noqoto oo milgihii dadka Soomaaliyeed soo noqdaan oo wadankan wadan sovereign yahay marka imaaraadku taasi xadgudub ku yihiin waan u malaynayaa inay arrintaasi aanay kulliba san banaanayn ma dhici karto inaad waxaa soo lacag ahon intaad diyaarad ingeyda soo kaxaysato aad wadan sovereign iska soo gasho aad iska soo degto jawaanadaada soo jiidato ma dhici karayso meel kale kama dhici karto halkan Soomaaliyana hadda kadib waa dhacayso xilligan heshii wada hadallo ma idin socday idinka imaaraadka waxa arinta iiga faradhuuban wasiirka arrimaha dibadda laakiin waxaan u malaynayaa in wada hadal jiraan ayaan dareensanahay oo heerkee heer sare muxuu ahaynaa foreign minister arrimaha dibadda ayaa filayaa marka nimika soo socday wasiirka arrimaha dibadda Cawad wuxuu ku sii socday isaguna Jidda oo aan oo ay sida ku shiraysay muxuu ahaa kulanka muslimiinta Soomaa marka hadii adigoo maxaa ku yiraahdaa aad maanta hor fadhiisan lahayd dawladda imaaraadka adoo mataliya dawladda Soomaaliya ama dabcan golo wasiir ahaan waad u shirteen qodobada 1 2 3 din ah ee ka dalbanaysaan imaaraadku inay sameeyaan waa maxay anigu kulliba arinta waxa iiga faradhuuban oo war badan ka haya muxuu ahaa finance ka anahay waxaan u maleynayaa dawladda dadiga faradhuuban laakiin anigu haddaan ku qayb gali lahaa waxa ii muuqanaya waxa weeye in imaaraadku ogaadaan in ay dal aan aad u soo wada shaqeynayeen cilaaqaad badan inay naga dhaxeeyeen ya laga soo bilaabo Sheekh Zayed iyo kuwii ka horeeyay cilaaqaad fiican baa naga dhaxeeyay emotional attachment na Soomaalidu way ku leedahay ya imaaraadka dad fara badan baa degan daanaba shaqadii ugu horeysay halkaas ka bilaabay ya anu high school ka soo baxay marka inay horta taa ogaadaan ayaa meesha ku jirta waxa kale aan doonayaa inay ogaadaan in aan imika aad u liidano oo aanan ogolaan karin inaan dareeno in naga faa'iideysanayo hadeegadaade in aan dareeno ama waxa ka jiraan ama yaanay ka jirin waa ta kulli saas baan qabnaay in aan dareeno in la naga faa'iideysanayo
ayaan iyadana ogeysiin laha. waxaa kaloo ogeysiin laha waxaa weeye intaasoo dhan isku soo minguuriyo haddaad doonaysaan inaad nala shaqaysaan habka soo mara. dalkani waa federal weeye, waa one nation weeye, one country weeye. waxyaalahan waaweyna haddii ilaha yidhaahdo, haddii alla yidhaahdo waa wax federalka ku saabsan. marka de haddaad doonaysaan inay nala falgashaan, ya habkii loo baanaa soo maro oo federal government soo maro, dabeetana meesha noo sheego aan isdiyaarino si aan u garan karno, skillskeeda aan raadino si aan u garan karno waxaa naga soo gelaya, waxaa idinka soo gelaya inay sax tahay waxaan in kale aan raadino. ciidan World Bank aan weydiisano support inuu nasiiyo xagga kartida Africa aan weydiisano, dabeetana aan wada fadhiisano. way mawduuca imaaraadkana ka baxaa rabaa, laakiin hal su-aal baan kaa weydiinaya. dowladaadu ama dowladda hadda ku jirto wax caddayna ma haysaa imaaraadku inay isku dayeen ama qorsheynayeen inay dowladda siyaasad ahaan minjaxaabiyaan ama xasiloodan doorra ku ridaan? arrinta kama warqabo. ma yani wax badan oo anigu de waxaan ku mashquulsano xagga finance waan ku mashquulsana maarta. intan dambana waa aniga waan maqmaqanahay. arrintaasi waxaan u malaynayaa inaanan wax badan ka sheegi karin. yani ma odhan karo wax caddaana lahay. caddaan muxuu noqon karaa bade caddaan muxuu noqon. dadka qaar waxay leeyihin lacagtaa waxaa loogu talagalay in dowladda lagu minjaxaabiyo, laakiin de wax un fare dhiigle lama arko. fare dhiigle meesha lama arko. laakiin de dadka qaar waxay leeyihiin lacagtaa waktigaa timid iyada oo baarlamaankii is haysto, iyadoo dhibaatadaas taagan tahay, lacagta waktigaa timid waa dadka qaar leeyihiin waa minjaxaabin baa loogu talagalay baa qaar leeyihiin. qaarna waxay leeyihiin mee waxaa loogu talagalay malaaniyo in de cusbitaalada iyo arrimaha ka shaqeynaya ciidamada iyo ay ka shaqeeyaan. marka arrintaa waxaanu daynaynaa legal systemka inuu meel dhigo. imaaraadku hadda way baxayaan, way xireen, way joojiyeen hawlihii tababarka iyo wixii kale ka wadeen. wasiirka gaashaandhigga waxaa laga soo xigtay inayn loo baahnayn kharashkii iyo wixii ay siinayeen ciidanka. marka ciidankii imaaraadka ay lacagta siin jireen ilaa 1,000 meelahaas nina ahayd. muqdisho kale markaan fiirino, puntland ilaa madaxweynaha puntland wuxuu sheegay 2,000 iyo dheeraad askari inay tahay. dowladda federaalku ma ku filan tahay mushaar? waxay allana badan yeelin, waxay allana badan ayaa yeelin. waxa weeyaan madaxeenoo sarreeya iyo sharafta dalkan ayaa halba kale muuqda.